abaal ninkii galaa loo gudaa waxay hadalladaasi ka mid ahaayeen ereyadii Cabbaas Sheekh Saalim Maxamed Al-Campari oo ah wiil uu dhalay nin Carab ah kana tirsanaa ururkii gobonimo doonka ee ka dagaalamaya gobolada waqooyi ee Sanam. Sheekh Saalim waxa uu raashinka sigaarka iyo saanada ciidanka ugu keeni jiray Sanam xeebaha Xiis iyo Mayl. Muddadii dambana doontaasi waxa lagaga burburiyay gudaha badda. Sheekh Saalim waxa uu dhagaha ka furay hanjabaadii Cali Cabdalla Saalax iyo madaxweynihii Maxamed Siyaad Barre. Intaasi kadibna dagaalkii ka bilaabmay Yaban. Saalim waxa uu yimid dalka Soomaaliland si uu helo abaalmarintii ama abaalgudkii uu sameeyay qarankani. waxaanu arrinkaasi ka wada sheekaysanay Cabbaas oo ah wiil uu dhalay Sheekh Saalim. مجاهدين إسلام لأنه أبي دخل في دولة إسلام دعم إسلام بالراشن التمر والنفط. كبار مجاهدين إسلام هم عارفين أبي مثل محمد كاهن، أحمد ميرا، إبراهيم دقوينة، عبد السلام تركي، مليان. حتى برصاب رماح هو عارف أبي. هو كان يدعمهم، دخل في إسلام يدعمهم معاونة إسحاقيين حتى انتصروا. فعلا خسر العقد يمكن أكثر من 90,000 دولار. 90 يعني أكثر من 90,000 دولار. هو خسر إسلام. هو كان عرقاب حيس يا ملك. حيس كان وشوقا أحمد محمد كاهن أحمد. أما ريمير هو كان موجود واحد أحمد مرة. وهاجاك داودياله Cabbaas waxa uu niyiri waxa uu ku jiri jiray abahay oo markaasi macaawimo soo gaarsiin jiray turjumi doono wuxuu yiri abahay wuxuu ku jiri jiray SNM waxaanu macaawimo soo gaarsiin jiray ciidamadii SNM ee ka dagaalamayay markaasi gobolada bariga ama beelihii markaasi ka dagaalamayay gobolada waqooyi ee gobonimo doonka ahaa wuxuu intaasi sii raacay abahay waxa garanaya mujaahidiin waaweyn oo ay ka mid yihiin Maxamed Kaahin مصبيحي أحمد مره يولي إبراهيم دقوينه رماح عبد السلام تركي رجل نوع عاصم مرني إنه قرنا ينا باهي أنت سوي جرت ثاني حتى الآن كلمنا أحمد مره من أجا من لندن قبل سنة هو الذي يعرف أبي شخصيا ومحمد كاهن فقال لنا اذهبوا إلى عرقابه وجيبوا أوراق إثبات فذهبنا إلى عرقابه وجبنا أوراق إثبات من سلاطين هبر يونس وسلاطين هبر جعله سدح يطبن هبر جعله سدح يطبن هبر يونس ثم ذهبنا إلى برصاب عرقابه أحمد عبد فلاي ففعل لنا ورقة تتجه إلى كسر الرئاسة تمام ولن نشوف سيئنا نكري لابن بين دورنا إنه ترجعنا وحنا اللي هي وحيري waxaan la hadalay markii Axmed Mira London ka yimi magaalada Hargeysa waxaanu kala sheekaysanay markaasi maadaama isagu aabahay uu si fiican u garanayay waxaanu kala sheekaysanay inaan u sheegno marxaladayada wadankaygu dagaal ka socdo aanu markaasi doonno iyo waxaanu mudanahay Axmed Mira wuxuu yiri cergaabo ku noqda ee soo sameeysta waraaqihii cadeynaya markaasi idinka oo waraaqaas maadaama idinku inta badan aad joogteen dee cergaabo macna oo warqada soo sameeysta warqadii way soo sameysteen waxa xilka haya markaas Cabdi Falaay baa hayay warqadina way sida balaasba warqadahaas aynu eegi doonaa oo imika uu leeyahay waa sida اللي هذه الورقة معاك الحين صح؟ نعم هي موجودة معي الآن وأنا أكثر من سنتين 6 شهور الآن هنا أجالس ما قدرت أدخل كسر الرئاسة لا سيناي ولا مصبيح والآن فعلا مجاهدين الآن هم ماسكين الدولة مدحويني سومايلاند SNM وزير رماح قدا SNM وزير كحجة SNM إذا لم أحصل الآن معاونة منهم من أحصل الآن نريد معاونة منهم الآن حاليا إحنا الآن كما تعرفون اليمن إنه الآن دقال حرب والله بالله حتى البيت حقنا ما عندنا بيت والله بالله نعيش لاقين أخوي نصهم في اليمن ونصهم في جيبوتي أما أنا على حالي سوماليلاند imaatinka Sheekh Saalim waxa uu soo dhaweeyay dadka degan bariga Soomaaliland iyagoo duqeyda iyo cuqaashba si wada jira ay warqad ugu qoreen maamulka gobolka Sanaag iyo Soomaaliland sanadkii 2016 waxaana warqadaasi u dhignay sida tan ujeedo cadeyn waayeel ku saabsan halgamaaga Sheekh Saalim Maxamed Qaasim Al-Campari haddii aanu nahay waayeelka hoos ku xusan oo ah waayeelka deegaana xeebeedyada Xiis iyo Mayl waxaanu halkan ka cadeynaynaa kow in Sheekh Saalim Maxamed Qaasim Al-Campari
bari oo ah nin carbeed yaman yahay uu yahay halgamaan naftiisa iyo maalkiisaba u huray khatar fara badanna u galay oo si weyn ugu soo qayb qaatay dagaalkii dib u xoreynta dalka ee ay wadeen xoogagii SNM isagoo dooni uu lahaa ninkaasi xiis iyo maydh ku keeni jiray shiidaalka raashinka iyo saanadii lagu dagaalamayay labo Sheekh Saalim Maxamed Qaasim Al-Cambari laantiis ma suurta gasheen guusha la gaadhay dagaalkaasi gaar ahaan aagaga bariga ee gobolka Sanaag saddex Sheekh Saalim waa nin oday ah oo mudan in wax weyn oo muuqda Soomaaliland u qabato oo loo abaalgudo waxaanu maanta ku jira marxaladii dadka Soomaaliland ay ku jireen sanadkii 1989 haddaba magacyada waayeelka deegaan xebadyada xiis iyo maydh ee cadayntani ku qoran waxaa ka mid ah Caaqil Xasan Faarax Jibriil Caaqil Aadan Abokor Cali Xaaji Biixi Maxamed Mustafa Saalax Xaaji Xasan Maxamed Ducaale Xaad Cali Axmed Cali Maxamed Faarax Maxamuud Cabdiqaadir Faarax Maxamuud Maxamed Ducaale Jibriil Mustafa Maxamuud Biixi Ibrahim Maxamed Kuudiye Saciid Faarax Cumar Chief Caaqil Saalax Maxamed Xirsi Saciid Axmed Xaashi Xuseen Shabeel Yusuf Maxamed Maxamuud Fiiraan Cali Shabeel iyo Jaamac Axmed Maxamed Cabdirasaaq Maxamed Saalax Jaamac Axmed Xasan Cali Xasan Nuur Xuseen Cabdi Maxamed Saciid Cali Cabdi iyo waliba Cabdullaahi Xuseen Axmed baaqa warqadaasina waxa ka soo jawaabay gudoomiyihii hore gobolka Sanaag Axmed Cabdi Jaamac geesta kalena Cabbaas waxa uu fariin u diray madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo ka mid ah mujaahidiintii SNM kuwoodii ugu xoog weynaa ama ugu cadcada waxaan u dalbaday in markaasi la gudoonsiyo abaalmarinta iyo khasaarihii ka soo gaadhay halgankii gobonnimo doonka SNM waa Axmed Maxamuud Axmed Koobi TV-ga SBS magaalada Hargeysa